aanay sanayaan rasmi ah ka dhaxeey waxaad bal nooga warantaa jabhadda ONLF xarunteedu asmaray ahayd waqti dheer madaxdii jabhadda iyo howlo badan oo muhiima halkaas ayaa laga fulinayay waxaana hadda ku sugan madaxda qaarkood ma laga yaabaa qorshihiinu inuu ku jiro inaad is aragtaan wax kasta siyaasadda way dhacaan weli xiriir toos ah oo nalaga codsaday ma jiro waxoogaa aan kala tirsanayna dawladda dhexe ee soomaaliyana way jireen arrintii waxaad og tahay sanadkii hore dhacday cabdikariin sheekh muuse ku saabsanayd aragtiyahooda iyo dawladihii tan iyo tii hadda joogtay iyo kuwii ka horreeyeyba nooc loo isticmaalo eritrea in lagu godoomiyo markhaati beena fura dawladihii hore aad baan ugu dhaliilaynay tan hadda joogtiyey intii ka horreysayba ahayd in loo isticmaalo ummad cilaaqaad iyo dani ka dhexaysa iyaga ay ummado kale u isticmaalaan waxaanu arkaynay Ethiopia isticmaali jirtay kufsi ay madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliya kufsanayso oo ay u adeegsanayso ummado kale inay ku waxayso lagu godoomiyo marka waxaan ognaa tallaabo fiican inay tahay hadda inay dawladda Soomaaliya ka soo noqoto haddii xiriir yimaado markaasaan ka jawaabaynaa weli igama soo gaarin xagga madaxdanada joogta Asmara inay muujiyaan arrintaa inay Soomaalidu dalbanayso wayse jirtaa calaamado ama astaamo ka soo baxayay dawladda xamar waayadan dambe oo inay ka xun yihiin wixii ay sameynayeen laakiin aan si rasmi ah u dhicin waxay la tahay haddii ay rabaan inaan kulanno dad Soomaali oo wax badan ka dhexeeyaan nahay jamhuuriyadda Soomaaliya stakeholders baan ka nahay shacbiga Soomaalida oo dhan baa leh caasimadii Soomaalida calankii Soomaaliyeed baa halkaa meeshii xuduntii Soomaaliyeed laakiin hirmooge haddii aan mudan cadaan si kale ku weydiiyo adinku oo laf ahaan miidna danaynayn inaad xiriir la yeelataan dawladda Soomaalida aad baan u danaynaa qaybaha kala duwan ee gobolada iyo dawladda dhexeba inaan la yeelano shacbiga Soomaalida shacbi wax walba naga dhexeeyaan aaminsanahay isku maslaxada inaanu nahay hal shacbina aanu nahay hal maslaxadna leh hal asalna leh hal danna leh hal mustaqbalna leh saasaan aaminsanahay waxaase jira dawladda Soomaalida waxbaan ka tirsanaynaa inay gafaf naga gashay go'aamo khalad oo siyaasi oo weligeed hadda ka hor dhicin inay qaadatay oo nataabeeyay oo nataabtay oo dareenka dadka Soomaalida saartay xukuumadda go'aan khalad oo aan meel ka jirin oo Ethiopia lagu raaligelinay samaysay weli kama ayna noqonin go'aan kale ay kaga noqonayso maanan maqal laakiin kuwaas markii la kulmo markii aad kulantaan oo la wada hadlaa ayaa wixii aad tirsanaysaan qalad iyo saxba la hagaajin karaa soo ma waa runta laakiin tusaale ahaan annagoo 55 dal xafiisya ku labay dhaheen jabhadda ONLF waxaan u aragnaa iyagoo Ethiopia uun ku labeeyey argagixiso xukuumadda qaadatay ma ayna go'aan ka dambeeyay ma ayna samaynin go'aanka khalad buu ahaa waxaa kaloo khalad ah go'aankii cabdikariin gacanta loogu geliyey marka waan ka xunahay khalad buuna ahaa waa la sixina ma ayna dhihin magdhow morali aba magdhow baan ku leenahay cabdikariin sheekh muuse magdhow ku leh inay ka raaligelin ka bixiyaan go'aamadaana ka noqdaan waxa jawiga sii wanaajin lahaa buu yahay marka inay noqdaan qolada ugu dambaysa ee geeska Afrika hadda dhaqdhaqaaqa diblomaasiga aad positive uga socdo inay ugu dambeeyaan iyagoo markii u dambeysay Eritrea iyaga hadda dib u furanayaan cilaaqaadkoodii iyaga iyo ONLF ayna weli muxuu ahaay wixii soo kala dhexgalay midmadowgii ayna ka saarin waayahay dhinaca kale marka la fiiriyo inkastoo baarlamaanku uu labada qodob oo aad ka dhawaajisay dhiibistii cabdikariin sheekh muuse iyo magacaabistii ONLF argagixisada ay diideen haddana dhanka kale marka la eego gobolka waxaa ka dhacay isbeddel aad u weyn oo ay Soomaalidu aad isu weydiinayso doorka ay ONLF ku yeelan karto deegaanka Soomaalida ee Ethiopia iyo halka laga ambaqaadayo Soomaaliya muxuu ahaa dhulka Soomaaliyeed ee Ogaadeniya ONLF door weyn bay ku leedahay haddana ku yeelan doontaa mustaqbalkana hogaaminta muxuu ahaa dadka Soomaalida iyada ugu tunroon iyada u soo halgantay marka waxaan dadkanagana waxaan ugu baaqaynaa marxaladda maadaama qowmiyad iyo tartan qowmiyad Ethiopia ka socdo dadka Soomaaliyeed inay midoobaan isgarab orodka inay daayaan shirweyne qaranna waan ku baaqnay waana u qabanaynaa albaabadana waa loo furahayaa karti aan xuquuqdooda ku difaacno bisayl siyaasi oo xaqooda ku soo dhicino muxuu ahaayay aqoon iyo karti aan ku midayna dadka Soomaaliyeed baan leenahay marka iskalsoonida inay u soo noqoto weeye dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa xoogaga iyo dhaqdhaqaaqyada jira oo dhan inay maskaxda ku hayaan
in la mideeyo dadka soomaaliyeed. Caddaani ma naga siin kartaa tusaalooyin waxyaabaha aad isleedahay waad ku midayn kartaan dadka iyo tillaabooyinka aad qaadi kartaan? haa, waan idinka siin karaa. matalan waxaa noo qorshaysay inaan shirweyne qaran oo wadatashi a samayno oo oladaas qabato oo dadka oo dhan xoogaga kala ra'yiga duwan iyo kuwa isku ra'yigaaba loogu yeedho, deegaanada iyo kooxaha jira oo dhan loogu yeedho, dadka aqoonleyda, duqeyda dhaqanka, siyaasiyiinta, gobolada iyo deegaanada, ashkaasta saamaynta leh, intaasoo dhan intii lasugu yeedho muddo la siiyo weliba in laga bogto oo aan isla diyaarino road mapka ugu wanaagsan ee dadka soomaalida marxaladdan ay ku waajihi karaan. annagu arrintaa aad baanu oban oga nahay. muddana shirweynihiina waa lagu go-aamiyey, aadna waa loogu jeexjeexay. han weynna waanu qabnaa iyo himilo weyn inay taas suuro gelayso, waayo niyadannadaan ognahay, dadka soomaaliyeed iyo wuxuu kadahayaan ognahay. marka isku meel bay iyay garaacaysaa inaanu helno muxuu ahaay platformkii aan ku kulmi lahayn, goobtii nabadgelyada ahayd aan ku kulmi lahayn, taa doorashadeeda iyo hadda baarbaarideedii ugu dambayntii iyo kharashkii ku bixi lahaa baan diyaarinayna. ugu dambayntii isbeddelka ballaaran ee gobolka ka dhacay iyo hawada socoto waxaa la leeyahay ONLF way ka maqan tahay shirweynaha hadda carabkaad ku dhufatay. Hoggaankii wakhtiga dheer hogaaminayay ururka ayaa dib u doorateen. ma isleedahay waxaa laidinka filayay inaad dariiq kala qaadaan, jiilka cusubna ay talada kusoo durkaan? jiil cusub oo badan waa kusoo biiray talada ururka, talada dadka soomaaliyeed oo dhan uu kusoo biiray. jiilka cusub iyo dhiigga cusub albaabo weyn baa u furan. nisbada ama percentage-ka hogaamintii hore anu aan ka joogo aad bay ugu yar tahay markii la eego leadershipka maanta jooga. in lasii ballaariyana waan doonaynaa. marxalad dadka jiilka marxaladan kacay, xilligan kacay ay ku helayaan fursadna hadday diyaarsamaysaa. in aad loo ballaariyana waan jecel lahay. marka welwel kama qabno arrintaas inay caqabad noqonayso, inaba ma noqonayso. waxaan noqonaynaa muxuu ahaay waalid usha u dhiiba ubadkiisa oo diyaarsan oo ku hubaysan afkaar caafimaad qabta iyo ujeedo nadiif ah iyo danta ummadda soomaaliyeed, difaaceeda, midaynteeda, isu keenideeda iyo ilaalinta sharafta iyo qiimaha qofka Soomaaliya uu ku leeyahay geeska Afrika.